السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيرتنا شرفت لأيكو حران كنالكينا براف إنجليش oo ah kanaal ugu talagalnay inaan idinku soo gudbino cashiro ku saabsan barashada luqadda Ingiriiska. Cashirkeeni maanta waa cashirkeeni tobanaad qaybtiisa labaad oo weli dhexda aan kaga jirno faahfaahintii cashirkeeni tobanaad qaybtiisa koowaad oo ahaa have and has oo macnaheedu tahay haysasho ama lahaansho ama qaabka aan tilmaami lahayn waxaan haysano. intiinan guda gelin cashirkan faahfaahintiisa fadlan hadaa naga cusub tahay subscribe share like si anaga inoo noqoto dhiirigelin sidoo kale furo kambalelka si ay kusoo gaaraan muuqaaladeeni ugu dambeeya aan soo gelino mahadsanid. Have and has hadaa wax yar isdul taago waxaa la isticmaalaa saddex siyaabood ama saddex goor oo kala duwan la isticmaalaa oo midda koowaad ay tahay hadda aan baranayno aan soo wadnay oo ku saabsan haysasho shay anaga aan haysano ama xayawaan uu haysto ama shayaash ay haystaan oo adigu waxay tilmaamaysaa shay heshisidiisa. Okay, midda labaad waxay tahay markaan tilmaamayno hawl ama ficil aan sameynay waqti dhaweyd aan soo dhaafnay. iyo midda saddexaad ay tahay inaan ku tilmaano ama aan ku cabirno markaan ka hadlayno hawl ama shay nalooga baahan yahay inaan sameyno. insha Allah labadaas booskooda ugu tagi doonaa cashiro gaari leeyihiin ugu tagi doonaa duulaha idmo. tan hadda u soo laabto waxayna leedahay this indicates tani waxayna na tusaysaa ama noo muujinaysaa that a person qof or noun shay is in possession of something qof ama shay waxa uu leeyahay ama uu haysto ay noo muujinaysaa. aan ku baranayna have and has waa isla soconaa saafilayo. laba group waxaa jiraan groupna have ay qaataan groupna has ay qaataan. groupka koowaad oo have qaadanayo waa dhankan bidix kuwa naga jira iyo kuwa has qaadanayo ah dhankan midig kuwa naga jira. marka wuxuu qaybsan yihiin 3 iyo 4. midda koowaad waa I waa aniga, you waa adiga ama adinka, we anaga, they iyaga. Okay, intaan waxay qaadanayaan have. I have waxaan haystaa, you have waxaad haysataa ama waxaad haysatiin, we have waxaan haysanaa, they have waxay haystaan. Okay, dhankan kale has qaadanayo waxay kala yihiin he oo ah asaga, she iyada iyo it oo ah xayawaanaadka ama shayyaasha markaan tilmaamayno haddii lab yihiin ama haddii dhadig yihiin. bini'aadanka lab iyo dhadig waxaan kala tilmaanaa he iyo she. he asaga, she iyada. laakiin xayawaanaadka it kaani wadaagaan he iyo she hoostan it ayay ku hoos jiraan. marka haddaan tilmaamo qaabkay u qaadanayaan has waxay noqonaysaa he has wuxuu haystaa ama leeyahay, she has waxay haysataa ama leedahay, it has wuxuu leeyahay ama waxay leedahay ama haysataa ama haystaa. Okay, intaan aan tilmaamay groupkan bidix way qaadanayaan have, groupkan midigna waxay qaataan has. aan ku bilaabo tusaalaha koowaad oo aan sa u fahanno have iyo has qaabka loo isticmaalo. haddaan ku bilaabo midda koowaad waxayna leedahay the dog. dog waa xayawaan, dog waa xayawaan. xayawaan hadduu yahay dog waa noun waa magac. marka pronoun ama magacyaalkiisa wuxuu inoo noqonayaa it. Okay, the dog has eygu wuxuu haystaa a bone laf in its mouth afkiisu ku haystaa. eygu wuxuu afka ku haystaa laf. bone waa laf, its waxay la mid tahay wixiisa ama waxeeda oo ah ay leeyihiin xayawaanaadka ama shayyaasha. Okay, hadda midda labaad u gudbo waxayna leedahay who has. who kuma. who waxaa loola jeedaa kuma. qof markaa weydiinaysid waxa uu yahay who kuma. who has an extra pen I can borrow. yaa hayo qalin dheeraad ah aan ka amaahsan karo ama aan ka amaahan karo. who has kuma haya an extra waa dheeraad. who has an extra pen I can borrow. yaa hayo ama kuma hayo qalin dheeraad ah aan ka amaahan karo. isla fahanaa fila. Okay, do you have my phone number? ma haysaa number telefonkeyga. do you have my phone number? ma haysaa number telefonkeyga. do waa qaab su'aal aan weydiinayno. do waa su'aal weydiin qaab su'aal loo weydiiyaa jirto. do
oo markaas su-aashaas aad rabtid jawaabteeda inay noqoto yes or no. ha ka walwalin, cashiradeen dambe ku qaadan doona insha allah. Do you have my phone number? ma haysaa number teleefankeyga? ma haysaa number teleefankeyga? Do you have? ma haysaa number teleefankeyga? midda afraad waxayna leedahay I don't have time for this. I don't have time for this. waxaani waqti uma hayo. Don't waa erey lagu cabiro diidmo ama inaad wax diidan tahay. waxaa la lahaa don't. I don't. marka don't waa laba erey la isku diro oo ah do not. I don't have time for this. waxaani waqti uma hayo. midda shanaad waxayna leedahay you don't need uma baahnid another car gaari kale. Another waxaa loola jeedaa mid kale. Another mid kale. You don't need uma baahnid another car gaari kale. You already have 3. durba waxaad haysataa 3. You already have 3. durba waxaad haysataa 3. uma baahnid gaari kale. durba waxaa haysataa 3. You don't need another car. You already have 3. وأسئلة فهمنا ومالنا. من تلحات he has a great idea. he وقادنا he has a great idea. وحو هيا فكرة آد وفي عن he has a great idea. وحو هيا فكرة آد وفي عن great وحالو لجدا وح آد ama aad u weyn ama aad u fiican u muhiimsan. He has a great idea. Idea-na waa fikrad. midda toddobaad waxayna leedahay Mark has an English lesson this evening. Mark waa magac nin, waa noun. haddaan ka dhigana pronoun wuxuu inoo noqonayaa he, soo maha? haddaa xasuustaan cashirkeeni subject pronoun. Mark has an English lesson this evening. Mark wuxuu leeyahay cashir Ingiriis ah galabtan ama galabtadan. Mark wuxuu leeyahay cashir Ingiriis ah galabtadan. Mark has an English lesson this evening. Okay, midda sideedaad waxayna leedahay I have 2 dogs. waxaan leeyahay 2 ay ama waxaan haystaa 2 ay and 2 cats 2 bisadood in my house. waxaan ku haystaa gurigayga. waxaan gurigayga ku haystaa 2 ay iyo 2 bisadood. I waxay qaadanaysaa have, xusuusnow. I have 2 dogs. waxaan haystaa ama ii joogaan 2 ay and 2 cats 2 bisadood in my house gurigayga. waxaan gurigayga ku haystaa 2 ay iyo 2 bisadood. asala soconaa saafilayo. midda sagaalaad waxayna leedahay do you have any money? ma haysaa wax lacaga? Do you have any money? Okay, and you waxay qaadanaysaa have, soo maha? haddaa xasuusataan you waxay qaadanaysaa have. Do you have any money? ma haysaa wax lacaga? haddaan guddo midda tobanaad ee u dambeysa. middeeni tobanaad ee ugu dambeysa waxayna leedahay what do you have in your pocket? jeebkaaga maxaad ku haysataa ama jeebkaaga maxaa ku jiro? what do you have? maxay? Okay, what do you have in your pocket? jeebkaaga maxaa ku jiro ama jeebkaaga maxaa ku haysataa? cashirkani maanta intaas inoogu egyahay. fadlan haddaad ku cusubtahay kanaalkeena baro af English, ha ilaawin inaad noo saartid subscribe, share, like si anaga inoogu noqoto dhiirigelin. sidoo kale ha ilaawin inaad la wadaagtid asxaabtaadii, qaraabadaada iyo familkaaga iyo qof walba is leedahay uu u baahan yahay muuqaalkan ama uu ka baran karaa luqadda Englishka. inteenan cashirka xiga aan ku kulmeyno. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.